hadda ka hor ayaa waxaa jiray geed weyn oo tufaax ah oo magaalada banaankeeda ku yaalay. waxaa sidoo kale imaan jiray geedka wiil yar oo maalin kasta ku ciyaara, waxa uuna kori jiray geedka dushiisa. waxa uu cuni jiray miraha geedka asagoona ku ciyaara laamaha geedka uu leeyahay. muddo markii la joogay wiilkii waa uu weynaaday, waxa uu noqday dhowr iyo 10 jir. waxa uu marmar dhifa soo booqan jiray geedka. geedkii ayaa waxa uu noqday mid murugaysan, aadna wuxuu ugu xiisay wiilkii yaraa. si lama filaan ah ayaa waxa maalin soo booqday geedkii wiilkii. geedkii ayaa aad u farxay oo wiilkii dhahay, ma waxa u timaaday inaad la ciyaarto? wiilkii ayaa ugu jawaabay, maya, anigu markaan waa weynaaday mana kula ciyaarayo. wiilkii oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi, aniga waxaan kuugu imaaday, waxaan u baahanahay lacag aan ku iibsado waxyaabaha aan u baahanahay, mana haysto wax lacag ah. geedkii ayaa ugu jawaabay, arrintaasi way fududahay, waxa qaadataa mirahayga tufaaxa, iibi waxaana ka heli doontaa lacag. wiilkii ayaa aad ugu farxay arrintaas. waxa uuna qaatay dhammaan mirihii tufaaxa asaga oona iibiyey. intaas kadib wiilkii dib uguma soo laaban geedka ilaa muddo dheer ka bacdi. asagoo nin weyn ah ayuu wiilkii waxa uu mar kaleeto soo booqday geedkii. geedkii ayaa aad u farxay sidii oo kaleeto, waxa uuna ugu jawaabay, waxa u imaatay inaad ila ciyaarto. geedkii markuu intaas yiraahday, wiilkii ayaa ugu jawaabay, maya, kulama ciyaarayo, sababtoo ah anigu markaan waxaa noqday nin weyn, mana doonayo in aan kula ciyaaro. markaan waxaa noqday aabbe leh caruur iyo xaas, ayaga ayaana iiga baahan in aan waqti la qaato, laakiin waxaan u baahanahay guri ee ayaga iigu hoydaan, laakiin ma aan awoodo. intaas markuu yiraahday, geedkii ayaa ugu jawaabay, taasi dhib ma lahan, oo waxaad samaysaa, waxaad jarataa laamahan oo iibi, ayaga ayaa lacag ka heli doontaa, kadibna guri ugu iibso. ninkii wuxuu gudagalay in uu jaro geedka laamihiisa ilaa uu laamihii ka wada jiro geedka, kumana soo laaban muddo dheer ka bacdi. sidii oo kaleeto markii muddo la joogay oo geedkiina aad u murugaysan yahay, ayaa wiilkii oo noqday nin weyn waxa uu ku soo laabtay geedka. waxa uuna markaan da'diisu ay ahayd 50 sano. geedkii ayaa sidoo kale haddana mar kale aad u farxay, waxa uuna ugu jawaabay, ma waxaad doonaysaa inaad ila ciyaarto saaxiibkaygiiow? wiilkii ayaa ugu jawaabay, maya, anigu markaan waxaa noqday nin weyn, kuna lama ciyaari karo, oo waxaa noqday nin da' ah, laakiin waxaan u baahanahay doon si aan u soo maro adduunka oo dhan. geedkii ayaa mar kale ugu jawaabay, dhib ma lahan, waxaad samaysaa, waxaad jarataa jiriddeeda oo waxaad ka samaysataa doon, waxaana ku soo mari kartaa adduunkii oo dhan. ninkii sidii ayuu sameeyey, geedkii ayuu jaray, waxa uuna ka samaystay doontii uu u baahnaa. waxa uuna soo maray dhammaan adduunka oo dhan. muddo markay ka soo wareegtay, odaygii waxa uu noqday nin da' ah oo aan awoodin inuu wax qabsado, xataa aan doonaynin inuu cid la hadlo. dhammaan carruurtiisii iyo waxa uu dhalane waxay mashquul ku yihiin noloshooda. wuxuu u soo laabtay geedihii si uu waqti ula qaato, laakiin nasiib darro wax geeda meesha kuma oolin, oo mar hore ayuu geedkii dhintay. hadda waxaad dareemaysaa ninkan inuu yahay qof xun oo geedkii saaxiibka la ahaa waxyeeleeyey. haddaba waa sidaan ula dhaqanno waalidiinteenna markii aan nahay kuwa yaryar. waan la ciyaarnaa markii aan aad u yaryarnahay, laakiin markii aan weynaano lama ciyaarno waalidiinteenna oo waan ka tagnaa, waan iska hilmaamnaa waalidiinteenna. waxaana noqonnaa kuwa keliya u soo baahdo ama u imaado waalidiinta markii aan wax uga baahannahay. markase waalidiinteenna waxa ay ka shaqeeyaan si aan u faraxsanaan lahayn. page-ka like saar, nagu soo biir, mahadsanid.